مدن مدحوينه مسؤولين الدولة هير قبل هير قرن لا تليها مدحوينها وكيل كدلك إماراتك بهذا عافماتك مرتي شرفتك كلا شعب قبل كتقدر حلي بانا قيمها بدن لما أنتين وحشرفنا أننا وزارة هرمرينتا عافماتك إن أدنا جلسوا قيب قشان نجحديجا ونوديجا يوم مدحوينها قرن كجمهورية الصومال دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو عسبتال كتخصصات كسرة لو يقانو شير محمد بن زايد لبيه دونا هدي لهذا ما أنت لقى بلابنا مقع قادم دونا وقارين وحرم هالنقية مدحوينها قرن كجمهورية الصومال وما أنت ينوديجا حديجي عسبتال كتخصصات كسرة شير محمد بن زايد مقالة برعو sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo si hagar la'aan ah uga shaqeysay hirgelinta isbitaalka takhasusaadka sare ee Sheikh Maxamed bin Zayed. Tani waa tallaabo weyn oo taariikhi ah oo wax weyn ka tari doonta horumarinta adeegyada caafimaadka guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka way ka go'an tahay in la sugo tayada maamulka iyo waxtarka isbitaalada dalka iyo guud ahaan caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo u hoggaansan siyaasadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi. ugu dambeyn waxaan shacabka Burco iyo guud ahaan Somaliland ugu hambaliyeynayaa isbitaalkan waxaan rajaynayaa inuu noqdo xudunta horumarka caafimaadka ee gobolka. waxaa la filayaa inuu wax weyn ka qabto isbitaalkani baahiyo badan oo aynu u qabno oo ay ka mid yihiin waxa kordhaya helitaanka adeegyada ka baxa Jamhuuriyadda Somaliland sidaad ogtihiin madaxweyne anagu aan ogyihiin bulshadu adiguna aad madaxweyne og tahay waxa dalkeena ka baxa tiro badan oo bukaanaa oo la taga dhaqaale weyn oo taga adduunka daafihiisa kala duwan. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu baahida jirta ee loo taga dalka dibadiisa dabooli doono haddii ilaahay yidhaahdo dhaqaale badanina dalka baaqi u ahaan doono marka isbitaalkan la dhiso. horumarinta adeegyada takhasusaadka ayuu wax ka tari doonaa mudane madaxweyne. dhakhaatiirteena Somaliland ee takhasusaadka doonataa intooda badan halkan way ka baxaan. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu isbitaalka noqdo isbitaalka hirgeliya takhasusaadka rasmiga ah ee loo baahan yahay maadaama laga helayo takhasusaadyo kala duwan oo guud ahaan qaybihii kala duwan ee wararka isbitaalada ah. waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalkani sidoo kale shaqo abuur iyo tababaro caafimaad uu ku soo kordhiyo Jamhuuriyadda Somaliland. sababtuna tahay waxaad ogtihiin in xirfadlayaasha caafimaadku waddankeena ku badan yihiin laakiin aanay qabin tababaro ay wax kaga taraan goobaha caafimaadka. sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa isbitaalkan inuu soo kordhiyo xirfadlayaal oo kor u qaado xirfadda caafimaadka bahda caafimaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. isbitaalkani wuxuu ka qayb qaadan doonaa yareynta culaysyada haysta isbitaalada hadda jira oo ugu mudan yahay isbitaalka Hargeysa Group Hospital. mudane madaxweyne sida wasaaradda caafimaadku aan xogtii hore kuugu soo gudbinay waxaa jiray isbitaalka ugu weyn ee culaysku ku dhaca marka dhibaato timaado iyo mar walba waa isbitaalka Hargeysa. isbitaalkani wuxuu noqon doonaa midaynu kaga baxsano culays kasta oo ku yimaada isbitaalada si loo helo maamul daadejin caafimaad. isbitaalkani wuxuu qayb ka noqon doonaa oo runtii wax weyn ka tari doona gobolada bariga oo inta badan Somaliland dhulkiisa oo ku yaalo. Somaliland waxa kala badho waridaadna 100 dheeraad kiiloomitir bay Burco u jirtaa. sidaa daraaddeed inta kale way ka shishaysaa baahida inuu wax badan ka qabtaan rajaynaynaa. xoojinta kaabayaasha caafimaadka qaranka uu qayb ka qaadan doonaa kordhinta kalsoonida dadweynaha. waxaan rajaynaynaa in isbitaalkan wax weyn ka taro kalsoonida lagu qabo caafimaadka waddanka. mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu adiga wasiiradaada agaasimayaasha shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ugu bishaareynayna in isbitaalkaasi inoo dhagax dhigay madaxweynuhu sida uu sheegayna si dhaqso insha Allah bidnillah kariim. mudane madaxweyne waad mahadsan tahay runtii halkan iyo aragtidan adiga lahaa ma yahay mid ka unkantay wasaaradda caafimaadka laakiin waa mid adigu nagu abuurtay. rajo badan baanu qabnaa